baalashka dhig buugga qaado markaad maqashay maxaa ku soo dhacay waa speaker ka mid ah speakerada halkan inuu ku casuban stageka ayuu ku casuban yahay caawa wuxuu nala wadaagi doonaa wax badan oo aan yacni u baahan attention gooniya xiise gooniya leedahay aniga iyo idinkuba xiisaan u haynaa ila soo dhaweey cabdullaahi oo nala wadaagi doona xogtaas بسم الله الرحمن الرحيم وسلامتهن دمان جاليال markaan isteedka soo fuulay durbadii waxaa kugu soo dhacay halhayskii ahaa baalashka dhig buugga qaado ma u malaynaysaa oraah ka kooban 2 weerood oo qura inay saameyn isbeddel ku yeelan karto boqolaal qoys mase aaminsan tahay dareen ka bilowda qof keliya inuu rajo geliyay boqolaal arday oo aan hanka lahayn nolosha tan inay wax bartaan mase u malaynaysaa inay tahay wax sahlan in waxbarasho loo fidiyo boqolaal arday si free ah muddo 7 sano ah iyadoo aanan la helin hanti taageero maal maskax iyo muruqba waatan qisada noloshayda cabdullaahi ibraahim xaaji uu dhaqdhaqaaqo ka mid ah arrimaha bulshada gaar ahaan waxbarashada geedigii qoyskayga wuxuu ka mid ahaa malaayiin Soomaaliyeed oo ay ku qasbeen dagaaladii sokeeye ee Soomaali ka qarxay in ay iyagoo faramaran waxba aanan haysan ay ka soo qaxaan guryahoodii yimaadaan deegaano cusub oo aysan weligood arag iska daaya xitaa aanay maqal deegaano aysan cidna ka garanahayn taas oo dhammaan bedeshay hayaankii rajadii iyo ididiiladii qoyskaygu lahaa taasoo isugu soo uruurisay qoyskayga oo dhan in ay ka fakaraan in ay helaan cunto hoy ay ka galaan qoraxda dabaysha iyo waa maxay roobabka da'aya nolosha barakaca waa mid ku salaysan xujo challenge joogto ah jaxartan mas-uuliyad wadareed ay si siman quudka iyo nolosha asaasiga u raadinayaan hooyada aabbaha iyo ilmahaba waa nolol hadafkeedu yahay in la daboolo baahi kasta oo uu qoysku leeyahay waa nolol ka maran gebi ahaanba adeegyada bulshada waxbarasho caafimaad biyo nadiifa koronto waa nolosha barakaca ka sheekeynaya waa nolol hadafkeeda oo dhan uu yahay in la noolaado oo keliya bilowgeygii waxbarashada ma mushkila hayaankayga waxbarashada ilmo kasta oo barakac ku koray ilmo kasta oo barakaca marka uu gaaro da'da 7 sano jir waxaa sugaysay oo keliya waxay tahay in uu daasadiisa baayashka qaato uu qayb ka noqdo raadinta quudka daruuriga hereerkiisa si uu u daboolo baahiyaha asaasiga maalinkuu ilmaha 7 jir gaaro wuxuu macsalaameynaya dhammaan xaq kasta uu lahaa oo ah in uu wax barto ciyaaro takaro han yeesho waxa uu macsalaameynaya dhammaan xuquuqdii asaasiga ee uu ku lahaa waddankiisa wuxuu qabanayaa shaqo aysan loogu talagelin inuu qabto ilmo yariisa maalinkaas ayuu wuxuu weynayaa wax kasta oo rajo ka lahaa nolosha mid la mid ah ayaa isugaysay maalinkaas 2 sano jirsaday laakiin si wanaag aabahay waxaan jeclahay aabahay inaad ku saabsan aabahay wuxuu qaatay go'aan adag wuxuu dhabarka u ritay in aan wax barano aniga walaalahayba mu ahayn go'aan sahlan go'aan uu qaadan karaa hal barakaca oo la dhacay helitaanka quudka daruuriga ee reerkiisa inuu igeeyo iskuul ay dhigtaan dad aan barakaca ahayn inuu juhdi iyo dadaal ku bixiyo in aan helo xaqaygii caruurnimo ah inaan ciyaaro in aan helo xaqaygii ahaa in aan wax barto waxa uu iga keenay geediga inaan baalish qaato oo aan noqdo boqolaalka arday ee subaxdii daabuurka u istaaga in ay qaataan
si ay maankooda u kariyaan aqoonta macallinkooda. maalinkaas aabbahay wuxuu goostay in reerkaygu maalintii o dhan ay qadaan oo mar keliya quutaan, laakiinse maanku noo quudmo oo aan mustaqbalka berri isaga u ayno. maalinkaas ayaan bilaabay aniga iyo walaalahayba halgankii waxbarasho. nolosha waxbarashada. sawirkan waa cabdillaahi xaaji, dugsi dhexe dhigta. sawirkan waxaa qaaday ma sheegaa. waxaan jeclahay in aad igu sacbisaan macallinkayga Saki Rabiica barbaariye wanaagsan inuu istaago ay dadka arkaan. tafadal istaag. macallinkayga Sakariya ayaa qaaday sawirkaa. waa sawir aad u qurux badan. maalinka uu qaaday wuxuu yidhi waxaan sawirkaa kaa iibin doonaa maalinkaa gacanta ka qalin jebiso. boosiga haddaad doontaa facebookasa inaad ka iibin kartaa. marka nolosha waxbarashadu ma ahayn mid sahlan. ma ahayn, waxay ahayd nolol aad iyo aad u challenge badan. waxaan wax ku dhex baranayay mujtamac qabiilku yahay shayga ugu qaalisan, mujtamac qabiilku yahay kan lagu kala sarreeyo, mujtamac aaminsan qabiilku inuu kaga sharaf badan yahay qof kale, mujtamac qabiilada magacyadooda qaybtood u adeegsada in laysku caayo, laysku aflagaadeeyo. waxaan dareemaya maalin kasta challenge nafsi ah. challenge-ga nafsiga waxaa ii dheeraa laakiin challenge maadi ah. aniga iyo walaalahayba waxaan khatar ugu jirnay bilba bisha ka dambaysa in aan iska bixin weyno kharashaadka iskoolka oo uu nagu dhaco inqidaac daraasi ah. challenge-ga dheer aan ku jirnay, laakiin aabbahay go-aankiisii waa uu ka dhaweeyey. ilaahayna uu ku guuleeyey in uu soo saaro arday master ah, 2 digrii ah iyo 3 arday oo dhigta dugsiga sare. sawirkan waa ooda ku jira. waa anigoo ka mid ah ardaydayda la taagan fasalkaygii. dhammaantood waxay ku guulaysteen inay iyaguna qalin jabiyaan. sawirkaa waa qalin jabinteedii dugsiga dhexe. anigoo ku hadlaya afka ardayda qalin jabinaysa si sahlan kuma uusan imaan. kanina waa xiriiriyihii xafladda foomfoorkayga. nolosha jaamacadda. maalinka aan jaamacadda ka qalin jabiyey, sida ka muuqata dhoola caddaynta, qosolka, malaayiinta saaxiibada iga dambeeya waxay u arkayeen inaan ahaa hogaamiye ka dhabeeyey riyadii aabihii. waxay u arkayeen nin rajo geliyey dhammaan cid kasta oo nolosha challenge ka soo gasha in ay guulaysan kadho. maalinkaan qalin jabiyey marka maxaa bilowday? bilow cusub, yoolal cusub iyo fursado cusub. maalinkaas ayay dhab noqotay riyadii aabbahay ee ahayd inuu soo saaro hal door aqoon ku hubaysan. maalinkaas ayaan taxqiijiyey riyadii uu aabbahay waalidkayda ay ku riyoonayeen oo ah inaan noqdo aqoon-yahan loo aayo. new beginning, new goals. nasiibka aan u helay inaan wax barto, mustaqbalkayga dhiso, ma aysan helin boqolaal iyo boqolaal arday ah oo xaq u lahaa inay wax bartaan, han iyo himilo yeeshaan. inkastoo ay jireen tan iyo maalinka aan anigu garaadsaday boqolaal hay-adood oo caalami ah iyo kuwa maxalli ahba, kuwaas oo ku kharash gareeyey malaayiin iyo malaayiin doolar waxbarashada, haddana weli kama aysan reebin caruurta barakacayaasha inay sitaan daasadihii baalashka. maalinkaas ayaan go-aansaday in aan dib ugu noqdo dadkaygii si aan ugu yaraan ugu qareemo waxaa anigu bartay. marakan waa xisada anigoo bixinaya. waxaan wareysanayaa ardayda, waxaan dareemayaa nolosha saxda ay ku nool yihiin, waxaan garanayaa baahida ay qabaan. waa sababta aan dhulka ula fadhiistay una dhegaysanaya baahiyaha gaarka ay qabaan si aan wax ugu xaqabtiro ama aan la dareemo waa maxay xanuunka ay dareemayaan. waa xisad wacyigelina oo ardayda aan ugu samaynaya in ay yeeshaan han sare. marakanna waa dhiirigelin arday karaar qaatay, sawir qurux badan,
arday imtixaan u fadhiya laakiin qiso xanuun badan ayaa ka dambaysa waqtiguu ay kulaalaya 2011 horaankeedii waxaan aasinay naadiga naharso hadafkiisu waxaa in wax la bara caruurta aayo iyo mustaqbal loo sameeyo isla 2013 waxaan ku biiray waxa loo yaqaan dalada hanaqaad oo aan halkan ka xusaya saaxiibaday injineer Nuruddin Xareed injineer Salmaan iyo Dr. Faisal Maaxiye doorka muhiimka ay ku lahaayeen in la soo saaro ardayga waxaan habeen kasta albaab ku gargaraacayna dheer barakaca waxaan leeyahay hadaad afar caruur dhasheen mid ka mid ah noo keena si aan mustaqbalkiisa ayihiisa u dhisno saddexda kalena ha idin shaqeeyeen markaas ayaan waxaan hadaf ka dhiganay in aan soo saarno 15 arday oo qura laakiinse muddo 2 sano ah aan ku jirno waxaan gacanta ku haynaa 500 oo arday oo anagu aan iskeena u maalgelin waxaan rajaynayaa 2024 in ay dufcadii ugu horeysay ay si talayska fariistaan aad iyo aad baa mahadsantihiin weligaa marka fariinteeda ugu dambaysa weligaa ma isweydiisay nasiibka aad heshay in ay jiraan boqolaal qof oo aanan helin ma ku fekertay mar qura inaad arday dan yara aad waxbarasho u fidiso mase ka leedahay hadeer qorshe ah in aad maankaaga iyo muruqaaga ku bixisid qof inaad waxbarto hadday haa tahay waa haa haddaysan haa ahayn waxaa jirta boqolaal iyo boqolaal aniga iyo kuwa la mid ah oo u istaaga inay daboolaan baahidaas kaale garab istaag oo la shaqee kuna taageer maal maskax iyo muruqba waxaa la joogaa markii aad qaadan lahayd go-aanka aan qaadanay ka qayb qaada inta karaankaaga ah sidii ilmo kasta oo Soomaali u heli lahaa xaqiisa waxbarasho waa markaagii ilmo kasta xaq waxa uu leeyahay inuu wax barto helana aayatiin fiican waa markaagii ka qayb qaado ololaha baalaska dhig buuga qaado aad baa mahadsantihiin والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته